جالل كوسو دوادا يوتيوب كينا توي شو ما أنت برنامج كينا وحنا كو إيجينا وهابية أو أدون صدي قبلها الصومالية وهابية دي استعربت أي قبله الصومالية وحي كان لجان أدومه طبعا قبل الصومالية إن الشارع كا يجيب لك هذا عرفت وضعه مر هراء أي الله أدون صدي مرك حمدي وخلاء لكم سنة وقبل لكم سنة حمدي هذا كيس وأنا أتقرأتها hore ayaa gabadhan loo aqoonsaday isla markaana loo banaystay dhiigeeda iyo in la kufsado inta waxaad karata jaaleel barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa sida gabdhaha ay u adoonsadaan wahabiyada tusaale waxa kugu filan fiir 250 ku dhawaad gabdhood ayaa shaqo soo dalbaday shirkadu wahabiyadu ay leedahay dhowr qof soo 3-4 ayuu ah bay ka qaadanayaan 250 shaqo la'aanta ku haysa sida loo jajoobahay iyo dhibaatada loo geysanayo ee barnaamijka sheekay aan marka hore daawano iyo shaqo soo dalbaday iyo waxa uu leeyahay dadka wahabiga dhiiso gabdhaha soo codsaday waxay ahaayeen ilaa 301 maanta waxa halka fadhiya ilaa 250 meelahaas fadhiya ومقلة جاليان 300 ku dhawaad baa shaqo soo dalbaday 250 baa fadhiya imikana fiiriya oo shaqo doonayay fiir cadadka ay leeyihiin fiir sawirkooda daawo sida ayaga dhab inta shareer iyo jilbaab baa loo galiyay naga qariya waxaan ufta ah ayaa laga dhigay fiiriya fiir meesha la gaarsiiyay 1400 sano ka hor bariga jaahiliyada carabta sidoodii u labisayeen ya allah gabdhihii Soomaaliyeed waa la duleystay gabadhaasi goorma xaqoo helaysa aan neefsa karinba oo in shariik lagu qariyo ya allah jalayaal asagii ayaa marka la hadlay waxa uu leeyahay maadooyinka ay galahayaan fiiriya maada islaamiga oo ku tilmaamay ayaa kamid ah waa maada islaamiga fiir waxaan maqli jiray bari hore muslimaad gabdhaha muslimaadka ah ay leedahay waa yaabay ma gabdhaha muslimaad hina Soomaaliya jooga dadka Soomaalida dhan waa muslim laakiin waxa uu kaligiis u sanayay oo garanaysa fiir fiidiyoga imika aan daawanayna wuxuu leeyahay maadada waxa ku jirta maadada islaamiga maadadaas waa maxay waa shariirkii ma garanaysa jilbaabka weynaaye madowaa ee wasaqda badnaa ee gabdhaha ay ku rarayeen dhageysi wuxuu leeyahay imtixaanku waa imtixaan waxa weeye insha Allah rajayna wax inaad ka bixi kartaan wuxuu ka kooban yahay Islamic English computer accounting iyo customer care buu ka kooban yahay waa general maqlaysa jaaliyal waanu fahnay waxa la yiraahdo accounting iyo customer care iyo magaranaysa wax loo baahan yahay shaqadii laakiin waa maxay islaamic maadaha kamid maadaas waa maxay gabadhaas ay shaqada siinaha wahabiyad waxay shardi uga dhigayaan inay jalbaab weyn oo wasaq badan oo qiimada baaha oo ay gabdhaha kullu gooyeen wahabiyadu iyo dhashareer ay soo gashato fiir ay dhashareer oo taa aragtaa ma qayb galayeen garanaysa waxa weeye imtixaan fiiriya meesh uu gaarsiiyay arag dadka wahabiga shaqada waxa sharti looga dhigay islaamiga waxa uu ku magacaabay ay arbixin ay xagga ahdu ahway fi muddo soo islaam marka xilli islaamig wuxuu meesha ka saaray dadka kale ee magaranaysa shaqada xuquuq lahaa hadii bi shaqo ay jirto tabcan ay mar walba farsamo ku dhiibahayaan waa garanaysa marka waa gabdhiga ahlusunna wal jamaa ee wanaagsan Soomaaliyeed gabdhiga caadiga ah ee in shariirkan waxaan weyn ee ku rogeen gabdhaha iska diiday xorta ah ee wanaagsan Soomaaliyeed gabdhaheeni ah waxa soo dhamashay shaqo ku weynahay tiijal baabneedo ay nafta u keeneen oo ay cabiidsadeen oo adoonsadeen ayaa magaranaysa shaqada u banaanta wanaga fiiriya maada islaamiga wax leeyahay ma arko ummadda Soomaaliyeed halka soo ahaya tan kale meesha faquuq ayaa ka muuqda shirkaas in lagu ciqaabo wala dabagal ay soo jeedeen hajab waxa hadalaya mid kale ayaa kamid ah oo fiiriya wadaadka wahabiga wuxuu qirahayaa in gabdhuhu ay kaalin muuqatay yihiin isla markaana rag ay ka waxbarasho fiican sidaas shaqalaan way haysa dhayso afkiisu ka qirxaya wadaadka wahabiga meelo badan oo waxa jira gabdhuhu ay ragga kaga fiican yihiin oo caalamka la doorba hadda waxbarashada kale kamid ah waxbarashada caalamka macallinimada waxa aad ugu sareeya hadii ay ku dadaalaan dadaalka ay la yimaadaan gabdhaha kaga fiican in badan ragga maqlaysa jaaliyal gabdhaha kaga fiican ayuu leeyahay meelo fara badan ragga وقرحيا قبله إن كان لي لكن مركا كان ضد بهور فديا وهور تاجن يحي وحوش شيء هاي شركة ما دام وليه وأي كسر قريب جلان ما راح معمل يدتك كلا إسراكيش يدتك كراشة وصاحبك وصيدا نضعها وقبله إن حريهين ومكان سجع الكيهين وإن لم يتها الجلباب كان وين إن الشارع كان يوعى صارها كسر جد دتك يكبغنا مركا ويستكسين وليه وقرحيا قبله حسد من ليهين لكن كان انتوا مرنا ما قالوا هذيكم واللي ده هذا يعرض مركا سيدي وعن أغن كهرو آد كل فوقاي عربت مركا يدو مركا هو أحيان حيرادا
yaa imra'a ayay yidhahdeen naag yahay ayay yidhahdeen wahaabiyad fiiriya waa inaad garataan jaaleel waxa ay sheegay qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee wanaagsan ee la hadlaya ee garashada leh maaha kuwa kale ah kuwa garashada leh ee garaadka leh ee fahmi kara dhibaatada lagu hayo ee kufsiga loo geysanaya inuusan hadda bilaaban mar hore la soo bilaabay waxa la bilaabo kufsiga markii mashaariirka loo galiyay markii jilbaabka weyn loo galiyay markii la yiri isqari markii la yiri wax jira maahid markii la wajigaada naga qari awrayahay lagu yiri oo adiga dham lagu liiday markaas lagu kufsaday horta waa in markaa garata fiiriya waxaan ka hadlahay nuween aan ahay walaalka aan ahay Soomaaliya aan ahay nin gabdhaha xuquuqdooda aad u danaynahay waa inay garataa gabadhay waa gabdhaha yaa waxaan la hadlay gabdhaha Soomaaliyeed kuwa garaadka leh waliba ee aqoonyahanka ah ee wax bartay ee fahmi kara waxaan ka hadlaa kuwaas ma harjeynaa kuwa kale si sheegay waxa hadlay maamulkii gobolka bari ee Puntland oo markaas ka codsanahay maamulka waxa weeye shaqaalihii iyo dadkii waxa weeye shaqada ay siin hayeen waxa weeye wahaabiyadu maadaama ganacsi oo dhan la wareegeen maamulka bari ee Puntland ay wax ka codsanahay war gabdhaha shaqasi waxa hadaad awoodin xafiisyadina gabar kaliya xataa shaqasi markay wiilal kaliya la shaqo galiya gabdhaha shaqo lama siiyo guriga lagu hayaa waa la liidaa wax xun ay ka soo qaadaan waa taqaana wahaabiyad dhageyso isagoo baryootama hayo oo leh gabdhaha shaqasi gabdhaha weeye ixtiraam amaanada ku fiican yihiin waxa bay ku fiican yihiin sida uga dhacdhicinahay meesha uu la gaaray dhageyso jaal shirkad walba haday gabar ama labo qaybta xisaabaadka ama qaybta khasnajiga waliba gabdhuhu amaanada waa ku fiican yihiin ragga waa kaga fiican yihiin haddii gabar la geeyo hal gabar shirkad walba waxaan u soo jeedinayaa madaxda shirkadaha gobolka bari in iyagu bilaabaan oo shirkad walba hal gabar ay shaqo siiso waliba shaqooyinka ugu fiican siiso maqlaysa jaaliyad waxa uu leeyahay shirkaduhu hal gabar xataa shaqsi ugu yaraan waa gabar kaliya fiiriya si uu baryotaan meesha uu garsiinay ninka maamulka war gabdhaha shaqaha la siiyo ayuu leeyahay wahaabiyadu laakiin gabdhaha waxba uma galo waxay aaminsan yihiin gabdhuhu guriga inay ku jiraan guriga inay joogaan inaysan dhaqaaqin garanaysaa haddii socotana inay shareer weyn iyo jilbaab inay wadato inay soo urto inay fiiri atar iyo waxayna ismarin inay wasaq badnaad fiiri adoonsiga halka iga gaarsiiyeen wahaabiyadu gabdhaha Soomaaliyeed way adoonsadeen way si adoonsan hayaan laakiin la yaabku waxa uu yahay oo yaab igu dilaanay markii aan arko qayb kamid ah dumarkii oo wahaabiyada noocaas u irmaan oo ma garanaysaa marka aan tilmaamno oo niraan war xuquuqda dumarka ogolaada fiiriya ka soo horjeeda fiiri wadaadada hada wahaabiyada aad arkaysid maalin walba markii ay wax kala dhacaan muusig ama gabar meel soo istaagta masrax way ka hadlaayaan laakiin kuwa lagu fusado si dhab uga hadlaan maalin si looga hadlaayo oo leer wadaadada waxay uga hadli waayay ay wax ka hadleen gabadha la kufsado waa xamdi way jaaliyad waa inaad garataa adoonsigu gabdhaha wahaabiyadu aad bay u adoonsadaan taa waa ina muhiim ah garataa waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo oo muhiim ay tahay gabadha aad arkaysid xamdi waa la kufsaday waa la dhibaateeyay gabdha fara badan Soomaaliyeed sidaan la yeelay gabdhaha kufsiga ku dhacaya hadda kuma uusan dhicin kufsigu wuxuu ka soo bilowdaa marka sharaftaada lagu diido marka qiimahaada lagu diido marka adiga dham laga dhigo waxaan jirin oo dhar madow lagu xiro wax balaayaha laga dhigo fiir balaaya madow ma ogta dhar madow balaayaha lagu xiro oo jilbaabkaas uu indha shareerkaas awoodid lagu xiro oo aad nuuc kala tahay oo dadka laga soocay markaas lagu liiday dadnimada la diiday wajigaada laga qariyo wajigaadi foolkaadi quruxda badnaa ee wanaagsanaa dadnimadaadi iyo qiimahaada muujinaya gabadha Soomaaliyeed tafiir gabdhaha Soomaaliyeed waa waxaan ku dhaashano waa waxa aan fiirsano waa waxa quruxda badan ee aan leenahay oo waxa uu xiyaa la qarinaya waxaas ma qaadan karayno gabdhaha Soomaaliyeed waxa rajaynayaa inay nala fahmaan oo ay dareemaan waxa aan garanaysaa ay dareensanahay iyo sida aan soo bandhigahay walaalkii Soomaaliyeed aan ahay Axmed Tooyaan ahay xuquuqda dumarka aad baan ugu doodaa waana ka soo horjeeda wahaabiyaduna gabdhaha way bacsanayaan عارفين هيا قبلو إنك قرطان إسلام كان لحرة قبلو أرنتتن أضاضة أو قبلو وحيابها مع يعني فيسبوك إبراهيم بالشيء يوتيوب وقال أنت سكت دايان حكاها لان حقوق دود هنا قرطان حقوق دود دتك دوسي وهابي إليه وهابي وحكينا محمد عبد الوهاب لا بقول حوار سنة جيران ما بضنا صوماليا وحجوجان قياس صدق صار سديت كبر ورسيم هذين إخوان مسلمين اللي يجري هذا حسوستان إخوان مسلمين أروس كودا يا لا قلا وقت اللي يجري عرفت اللي يجري مركز دم الحرارة وذا قصدين هذا أيه وذات ده عادي وأنا ذكرتها وذات كذا شيء قاعدة صوماليا تشار ما أنا أو ولا أبا ولا أبو ولا أبكو ولا أيه ولا أبوتا ولا سوجيني هذا أصلا
حتى سوجرين ما هي شغله من سبب اسمه دينية هذه صوبنية إحنا سنة والجماعة وحكوا قشة إن قبل أي تهي ولا شيء إن يتاع قال كان إن نعلم التهي إن الدرجة جاري كرتو إن حقوق هذا لكن وهابي وحمسية أخن قعدت أوحى قبل إن الليتان إن وحيين وجوا إن القرية إن تفير قف النور وهذه كلام من ما كانت وجه هذا قري halkaas ay waxay ka bilaabataba leedistu waa ina garata fiir dadku waxa la diina la wada wax diin leeyahay ma waxaas waxa kama jiraan wajiga ilaaha ku siiyay awrana ma gabadh wajigeeda qarisay wax la weydiiyo lama arko wax dadnimaha laga sugayo oo ay leedahay lama laakiin kuwa kale ee Soomaaliyeed ee garashada waxa raba ayagu in orahan qayb ka qaataan isaga markaana ay fahmaan gabdhaha noocaas iska socdaan oo tiraadan ka baxa meesha leedima baahan garanaysaa أحمد هويوي وأرنت تنسي أدق وهالهاي كان حن وحوي قميسية يعدون سيجا وهابيدو أي كوهايسو قبلها صومالية جميل أنت أنا جدا بأخر بدون برنامج أو كان لمده أو وهذا إنه وهابيد عرق حسدا يعني بعتذر أي كوهاي دمر كصومالي إيه ولي برنامج هذا كان يعتذر بدن يعني أدوى برتي يوتيوب كي تويشو وحنا ليه